السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada barnaamijkeenii maxay kula tahay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin wuxuu la fadhiyey saxaabada, wuxuu ugu bushaareeyey inuu Jibriil u sheegay inuu 70,000 qof oo ummadiisa ka mid ah inay jannada gelayaan bilaa xisaab iyo bilaa ciqaab, dad gaara oo qalbigoodu uu ka duwan yahay dadka kale. nin ka mid ah saxaabada oo fadhiyey oo la yidhaaho Cukaash ibn Maxaysin ayaa markuu maqlay wuxuu ku yidhi ii ducee rasuulallah inaan ka mid noqdo. wuxuu ku yidhi ka mid baa tahay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhintay. waxaa dhacay dad fara badan oo diinta islaamka galay inay markuu dhintay ay diintii ka noqdaan. dagaal baa lagu qaaday, muslimiintu ay ku qaadeen oo loo bixiyay xuruub ridda oo dadka diinta islaamka ka noqday lala dagaalamayay. dagaalkaa waxaa galay Cukaash ibn Maxaysin. dagaalkaas waanu ku dhintay, waxaana dilay nin la yidhaaho Tulayx al-Asdi. ninkaas oo sheegtay inuu isaguna uu nebi yahay oo muslimiinta u bixiyeen Tulayx al-Kadaab. Cukaasha wuxuu ahaa nin aad u qaaliya, sababtu waxa weeyaan wuxuu ahaa nin geesiya oo xoog badan. wuxuu ka gaadhay heer geesinimo marka dagaalka lagu jiro inay dhowr sayf ay ku jajabto qacantiisa oo marba sayftu ku dagaalamayo uu bedelo. waxaanu ahaa nin muuqaalkiisu wejigiisuna uu qurux badan yahay oo dabeecad wacan. muslimkuna barigaas ama saxaabadu aad buu jeclaayeen, sababtu waxa weeyaan waxay arkayeen nin ka mid ahli janna oo adduunka ku soconaya. nabigu waa kii ugu bushaareeyey inuu jannada galaayo. cumar bin al-Khattaab markuu noqday khaliifat almuslimiin ayaa waxa u imi nin baa u imi. ninkaas wuxuu soo baxay Tulayx al-Asdi, ninkii dilay Cukaasha, kaasoo markaa muslimay oo doonaya inuu soo bandhigo diintiisa islaamku dadku ogaadaan. cumar markuu arkay ayaa wuxuu ku idhi su'aal buu weydiiyey. su'aalka ugu horreeyay weydiiyey wuxuu ahaa adaa dilay Cukaasha soo maaha? wallaahi qalbigaygu weligii kuma jeclaanayo. cumar xalkan muu diidin inuu diinta islaamka uu ninkan uu soo galo, kamanuu hor istaagin, kumanuu canaanan inuu nebi uu sheegto been uu sheegay uu yidhi nebi baan ahay, kumanuu canaanan inuu dilay Cukaasha, kumanuu canaanan inuu muslimka ama saxaabada dagaal fara badan in badan kula jiray uu dadka u dhibay. waxa quru u soo bandhigay inuu qalbigiisu yahay qof bin aadama oo wax jeclaan kara oo wax necbaan kara. wuxuu u soo bandhigay dareenkuu u dareemayo. laakiin Tulayxa wuxuu ugu jawaabay jawaab aad u cajiiba oo u qalma inaad jaamacadaha dadka lagu dhigo iyo iskuullada. wuxuu ku idhi لا بأس يا أمير المؤمنين، لا بأس، ولكن معاشرة جميلة. إن الناس تتعايش مع البغضاء. وحكو إلي دب مالها أمير المؤمنين إنا ندي شعلان، لكن أنا سوى عن وضع دقنو ضدكو ويلنو ولان كران نعيبك أما كراهية دا. طليح الأزدي hadhowtana markuu muslim uu noqday diintiisa islaamka wuu hagaagtay oo muslim wacan buu noqday. hadhowtana wuxuu ku dhintay dagaalkii Naahawand ayuu ku dhintay oo uu istishhaaday. waxaa markasta ogaataan oo xasuusataan iyo idinku idhi waxaan u baahanay qof kastoon la dhaqanno ama aan la noolnahay ama duruufta inagu kaliftay inaan la shaqayno ama xiriir naga dhexeeyo inaan jeclaano. yaa kugu idhi adduunkanaad ku nooshahay waxa weeyaan adduun wada naxariiso wada kalgacalo wada jacayla. waayo qofka doqonka u maraynaya inuu adduunkanu jannadu noqon karo. shaqadaada waxaad ka heli kartaa dad fara badan oo aanan ku ekayn oo isku dhaqan aanadin ahayn oo isku diin aanadin ahayn oo isku dabeecad aanadin ahayn, taasuna wax dabiiciya. jaarkaaga waxaad ka heli kartaa jaarka dhibta badan ee ku dhibaya ee intaa dhiigga kugu kicinaya. dadka taqaanid ama aad la dhaqantid waxaa ku jira ka nadliga ah, waxaa ku jira ka bilaa tarbiyadda ah, waxaa ku jira ka bilaa naxariista ah, waxaa ku jira ka dadka dhiba ee dabiicadda xum, waxaana ku jiri kara qofka wacan ee ilaahay ku xidhan. waxaad markasta aad garataa aad aamintaa inay dadku la noolaan karaan nacaybka ama karaahiyadda. uma baahnid inaad dadka quluubtooda aad furtid si aad u aragtid waxay dareemayaan iyo dareenkay ku hayaan. waxa quluubta ku jira ha ku jiraan, ha taabanin, laakiin dadka waa inay idinka dhaxayso ixtiraam iyo xidhiidh wacan iyo tacaamul wacan marka wada shaqaynaysaan. cumar bin al-Khattaab mowqif kaluu istaago cajiiba. maalin waxuu imi ninka dilay walaalkii Zayd dilay. markuu arkay ayaa wuxuu ku idhi ma adigaa dilay Zayd? wallaahi weligii kuma jeclaanayo, xataa haddaa laygu idhaaho dhulku way jeclaatay dhiigga xaqdaro ku qubta. ninkiiba wuxuu ku idhi taasi ma ii diidaysaa xuquuqdan kugu leeyahay ama miiga hor istaagaysaa xaqan kugu leeyahay? wuxuu ku idhi maya, laakiin wejigaaga iga qari.
ninkii wuxuu ugu jawaabay wuxuu ku idhi dhib ma laha waxa jacaylka u ooyaa waa dumar. haddaba mar kasta waxaa garantaan jacaylka ama xumaanta ama nacaybka aan qof qalbigeena ugu hayno waxaan qacanteenna aan ku samayn karna ma aha, waa wuxuu ilaahay qalbigeena ku ridaayo. taana ilaahay inagalama xisaabtamayo. waxa qura laynaga xisaabinaya waxa weeyaan haddaa karaahiyadan ama nacaybkan qof aad qalbigaaga aad ugu haysid hadduu ka muuqdo afkaaga ama carabkaaga oo qofkaas aad xamatid ama aad caydid ama hadal xumaad ka sheegtid ama xumaan iyo karaahiyadaad qalbigaaga aad ugu haysid, iyo hadduu ka muuqdo ficligaaga oo aad xuquuqdiisa u diisid ama hadduu ka muuqdo ficilkaaga oo xuquuqdiisa qofka aad u diidid xaqu kugu leeyahay aad ka hor istaagtid ama xilku u qalmaayay inaad u diidid aad ka hor istaagtid ama aad dulumtid ama aad been ka sheegtid ama dhibaato aad u geysatid. cumar radiallahu canhu dadkii dhiig uu ka dhaxeeyey xuquuqdooda wuu siiyey laakiin muu jeclayn. waxaad mar kasta aad xasuusataa dadka ha ku xisaabinin waxay qalbigooda ay kugu hayaan, ha kana xumaanin dadka qaarkood inaanay ku jeclayn, taas waa wax dabiiciya. laakiin mar kasta waxaad dadka kala xisaabtamta aad xaq u leedahay xuquuqdaada iyo waxaad u qalantid inay ka hor istaagaan. waxaad mar kasta xasuusataa dadku way la dhaqmi karaan waanay la noolaan karaan, xidhiidhna wuu ka dhaxayn karaa dadka necab ee aana jeclayn. waxaad xasuusataa mar kasta inay dadku ay la noolaan karaan nacaybka ama karaahiyadda. idinkana maxay idinla tahay? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.